بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها الصومالي ذا ملك الساجوكتان بالله السنة كعصب لبكون اللحدة كود الجنوري مانتي إلى سنة كان خير كيسانا سؤاديو إن كستو مصيبوين إن نقصوا وجهه بالله السنة كان حدا صومالينا هيدا كان صومالي لقصوا الدولي أخونسيجا أن يهود أسيسي أن أخونسيجا كرترة قبل هذا وقوي أن dad badan waxa isweydiinayaan maxaa u sababay xilligan waqtigan maxaa ku kalifay yahuud waqtigan inay u abaarato waariga waa aragtideedu waa iska sahlan tahay in waxaan jawaabta su'aashaas waxa weeye waqti ka fiican imaaraadka iyo yahuudda iyo Ethiopia isbahaysiga sharta saddexda geesoodka ah xilliga madaxweyne xasan sheekh maxamuud waqti ka fiican ma helayaan لأنه وحي أركان مدحوينة جلعسان ودالكيس عن دفاعين حسن الشيخ محمود دالكو حلو ديبي عدو أسقو لغا ساري دولة إمارات كه اللغا حريي مدحوينة فرماجي كساري مركو مارواي نبكودا مركا وضن نظيف وهو عدو لغا بحيو أو اللو ديبي علاقات كيو ديبو لو صور نقضي إمارات عدو كه مركا واتا النتيجة دي آن هينو هدا جلجلاع مدحوينها أصببي الرنتاس إني يهود iyo farsamada ka dambeysay imaaraadka soo dhameysay hooshas taasa u sababtay marka maxaa xal ah hadda musiibada waa lagu dhex jiraa maxaa xal ah xalka wuxuu ku jiraa ila tahay meel jidaan taaganahay garaa lahada baa marayso xalka wuxuu ku jiraa sidii markii horeba cadawga dalka looga saaray oo imaaraadka markii cilaaqaadka loo jaray asaga hadda ma u jari karaa maantay galabtay war fiican aan maqlahay idaacadaha reerkiisa reeraha qaar oo madaxweyne xasan sheekh oo degan dalka imaaraadka laga soo rarahayaa waxa la geenayaa dalka Masar marka tilaabooyin fiican waaye maalmo kadib wuxuu u socdaa safar Sacuudiga kabacdina wuxuu marhayaa Masar waxa waaye isbahaysiga Sacuudiga iyo Masar iyo wadamada danta kale oo xeebta saaran badda cas inuu ku darmo waayo marka Sacuudiga maalin dhaweedii ka saartay Yemen imaaraadku ka saartay hub loo soo dejinahay baabuur iyo wixii way duqaysay marka waxa xal ku jira inuu nimankaas raaco Sacuudiga iyo Masar oo cilaaqaadkan u jar imaaraadka haddii la rabo maaragtay in laga hortago i'tiraafka daalimka iyo yahuuddu soo socoto oo meeshaas degi rabto waa ku qasban yahay xal kale ma haayo meesha waa la kala baxay waxa la noqday cadow iyo dad wadamadan danahooda ka ilaashanayo oo cadawgu iska celinayo saddexda dawladu duulaanka ah Ethioobiyaanka iyo yahuudda ay wadato gadaal ka maalgelinayso oo wax walba u fulinayso imaaraadka haddaan la iska dhicin waxa waay wadanka oo dhan maaragtay way si kala furfurahayaan marka xasan sheekh maxamuud bilaha u haray waxa danta ku jirta inuu isbahaysiga Sacuudiga ku biirmo oo imaaraadka iska ceeriyo hadii kalena waxa waa imaaraadka waa meesha waa Soomaali loogu iimaanayo insha Allah marka waxaan rajaynaynaa inuu talaabada ku dhaqaaqo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh